maxkamadda sare ee Soomaaliland oo labadii cisho u dambeysay dhageysiga iyo ka garnaqa dacwadaha ka waday gudaha magaalada Boorama ayaa maanta garsoorayaal ka socday maxkamadda sare ee Soomaaliland waxa ay si rasmi ah uga bilaabeen qaar kamid ah deegaanada hoos yimaada gobolada Awdal iyo Salal dhageysiga dacwadaha ka dhanka ah ronka dhulka kuwaas oo ay garsoorayaashani ay marayeen dhul uu khilaaf ka taagan yahay oo ku yaala degmada Quljeed ee ka tirsan gobolka Awdal degmada Boon iyo Xariirad oo kamid gobolka Salal garsoorayaashani ayaa gabi ahaanba mid u dul istaagay beeraha uu maranku ka jiro iyagoona warbixino ka dhageystay dhinacyada dadka isku haya mulkiyada beerahani ka sheekaynaya waan maxkamad waan u iftiiminaya halkan weeyi waan ku dhashay markay gacarada le waan ku dhashay sharcigayga way ku caddahay asbaabo cad baa laygu siiyo deegaankuna markhaati ka yihiin waxa meel aan istaajin doono maxkamadda oo aan indheeda ku tusi doono ayaa looga soo talaabsan duqa degmada Boon Maxamed Aadan ayaa soo dhaweeyay garsoorayaashani ka socday maxkamadda sare ee Soomaaliland isagoona tilmaamay inay arintani tahay mid si weyn loogu baahnaa kulli waxa leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada waxay fududeynayaan kulli marka maxkamadaha la wado tii ugu dambeysay Hargeysa loo tagi jiray tii way xukuumaddu inoo amartay in meel walba gabiilay iyo Awdal iyo Salal bay la tago oo qofka kharashkii ka bixi lahaa halka uu ku tagi lahaa si loogu dhibyeeyo maadaama ay qof muwaadin sidoo kale waxa hadalka qaatay garsoore Cabdiraxmaan Jaamac Xayaan oo ah hogaamiyaha kooxdan garsoorayaasha ah ee ka garnaqaysay dacwadaha ka dhanka ah arrimaha dhulka isagoona ka warbixiyay hawlaha shaqo ee ay u yimaadeen ayaa waxa uu yiri waxaan saaka ka soo baxnay magaalada Boorame maxkamadii sare oo isku chamberkan saddexaad oo hogaaminayo laba garsoorana ay weerinayaan waxaan u soo jeednay goobtan in joogno anagoo soo marnay goobooda kale waxaana u jeedo tahay in dadweynaha reer Soomaaliland la gaarsiiyo adeega garsoorka ama helitaanka si ay u helaan garsoorka loogu geeyo goobaha ay degan yihiin gaar ahaan beerahooga iyo bootooyinkooga horena gobolada bari aanu soo marnay imigana ka bilownay gobolka Gabil ka soo bilownay gobolka ku xigsiinay maxay ahayd Awdal isla joogno imigana gobolka Salal aanu gaari doono degmooyinka dhanka kale garsoorayaashani ka socday maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa xariga ka jaray xafiisyada maxkamadaha degmooyinka Boon iyo Xariirad kuwaas oo kor loogu qaadayo adeega cadaaladda maxkamadda sare wuxuu noo soo igmaday inaanu furno maxkamadda degmada Boon maanta oo taariikhdu tahay 22 bisha 3 2019 imigaanu furinay barakada Ilaahay baan ku furinaa bismillaahir rahmaanir rahiim munaasabado kooban oo lagu qabtay gudaha xarumahaasi xariga laga jaray ayaa waxay u dhaceen hadaladoodii sida tan waxaan leenahay soo dhawaada ka degmo ahaan waxa ay maanta noo sameeyeen in maxkamadda ay xariga ka jaraan maanta oo ay shaqeynayso ugu mahad celinaynaa gudoomiyaha maxkamadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Mr. Aadan gabagabadii mas'uuliyiintani ka socday maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa waxay soo dhagax dhigeen hirgelinta dhismaha xarun rasmi ah oo yeelan doonto maxkamadda degmada Boon Cabsalaan Saaha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Boon